isniintii ayaantii la dheelmay isagaya ilaahay axdiga ilaahayeenkii oofin jirayow ummadiisa nebigii ilaahay ammaanow aakhiriya adduunkaba kii loo abuurow yaa rasuulallaahi barakadiisa nebigii adduunka lagu bineeye shareecada noo bayaanshe xaqa noo baneeye calanka noo biglayn iyo bandiirada surayow bashiirow nadiirow boqorkii la doorto yaa rasuulallaahi nabi maxamedow geydkay dhacsacdeen cadawgii ku soo baxay baallaa ka joogsaday baraya qur'aanka bisinka kii cuskadaye barakadiisa nebigay kaga soo baxeenow bashiirow nadiirow boqorkii la doorto yaa rasuulallaahi buraaqadii tilmaanay tunka kii ka fuulaye samada u tallaabaya ilaahay u tagayeed ku talliimay diinteed toogadiisa gaarow innaguna ku tuugne nata kule xabiibow yaa rasuulallaahi xabiibow maxamedow allah tarigii makhluuqow diinta kii u kacayey noogu kaamilowde kaafiyey makhluuqow kacbadii islaamkow kurbadoo dhanfaydo yaa rasuulallaahi xabiibkaya sidiiquu jeclaa godkii ay dharseexdeen caaradu samaysay oo leyna socodkeedii siigada ku qarisay siraaqii colkiisii saankii ka soo baxay kiisaan qaabka diintiiyo suddan wa min qalbihim suddan lagaga dayrow sayidkii makhluuqe sirta loo hibeeyo yaa rasuulallaahi walaalayaal axbaabta meesha fadhida nooc walbay u qaybsan yihiin qof walbaa maqaamka iyo magaca iyo muuqaalka uu leeyahay ayaan ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib macdira waxaan ka cudur daaranaynaa meesha kulaylka badan oo aniguba aan ku gubtay u muuqata inay kulushahay waqtigu ma dhihi karo asagu waqtigii waa la daahsha lama dhihi karo maxaa yeele hadda ayuu bilow yahay waqtigu cudurdaarku kaliya waxaa weeyaan ciriiriga iyo kulaylka waan ka cudur daaranayaa waan u malayn inaga aqbashaan midda kale axbaabta oo qof walba sidaan u sheegnay magaciisa iyo muuqaalkiisa iyo mansabka uu meesha ku joogo waxaan rabnaa inaan u soo jeedinno xafladdan aan isugu nimid waxa ay tahay inaan qof walba isagu og yahay haddana xusuusin iyo baraarujin aan u sheego xafladdan ayaduhu waa daafur la daafurayo bisha mawlid ow dhashay xabiibkeenna xabiiburaxmaan bisha mawlid saaad ogtihiin maanta la joogo waa 1 ama waa 2 haddii taariikhda xisaabka la yidhaahna 2 weeyaan haddii aragga la yidhaahna maanta waa 1 waxaad ogtihiin in badan ma dhihi karo falaakiin hadda ka hor
إنه إلهينا مكانية سبحانه وتعالى إن حفلة قصيرة عن السوق النمت قصد تكون أوهاي dadka in lagu baraarujiyo bishaanu inay bilaha ka duwan tahay waxaad ogtihiin bishaan bilaha way ka duwan tahay maxaa yeelay nuurkii caalamkan loo soo diray oo xabiibka ahaa ayaa la dhalay calayhi salaatu wasalaam inay marka bilaha kale kaaga dunnaato waa lagama maarmaan in aad barato waa lagama maarmaan ogaato waxaa laga maarmaana inaad ahalka barto awlaadda aad barto shay bilaha kale uga xisaabnaato maxaa yeelay bilaha kale bilsaka waa la yaqaan qofku hadduu xoolo leeyahay bisha ramadaanna waa la yaqaanaa qofku hadduu soon ku waajibay xataa carruurta way yaqaaniin xajkana waa la yaqaanaa sidaas loo bartoo kale ayaa la rabaa tanna in la barto maxaa yeelay axadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kuwaasu waxay yihiin nagula soo dhiibay oo noo sheegay bisha la dhala weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam dabaaldeggaas iyo daahfurkaasna waad ogtihiin wax hadda bilowda maashala bilowda daraad bilowday markii nabiga la dhalay calayhi salaatu wasalaam ayaa caalamka kul dhan u dabaaldegay mashriqi maqrib inta u dhexaysa waqtiga ayay soo bilaabatay waxaan rabaa waqtigaas nabiga la dhalay calayhi salaatu wasalaam maanta hadda waqtigan la joogo haddii la fiiriyo haddii miilaadiye la yidhaah waxaa ka dambaysa 1446 sano iyo 2 bilood iyo 10 maalmood qiyaas ahaan waa haddii miilaadiga la yidhaah ama haddii hijri oo ka bacdi soo bilowda la yidhaahna waa 1490 iyo 3 iyo 2 bilood iyo maantoon 2 maalmood aan joogno qiyaas ahaan waad fahmi kartaa nabiga calayhi salaatu wasalaam bishii dhala waxay ahayd bisha abriil 20keeda sanadkuna ku beegnaay 571 على اختلاف التواريخ وصان تاريخ إنك سيسكيك رأيك هاي سايا صحة 571 أبريل 20 كذا قرار كانوا حبي شيخان وفهمي كرتا مركب بلوه انت كله الريان إن هجرينا مركي الله حسابنا أي نقطة تكون 419 هي 6 سنة أما 19 لبس سنة وما تي كان أي نقطة كون 4 iyo 6 أي نقطة معنا waxay ku tusinaysaa sano walba 12 maalmood aan aqal ay tan ka sareysaa saa isu guraysaa marka da'da laftigeeda qofkii miilaadiye xisaabdo maanta 50 sano maraayo 2 sano ku darsado hal ogaa inta ka baan tahay qofkii 50 maraa 2 ku darsada markii hijriye la yiraahdo oo yaan hoos la soo celinin taa waxa weeyaan waqtigaas nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa waqtiga hadda la joogo nabiga waa la soo xusay calayhi salaatu wasalaam way soo socotay waxaad ogaataan marka aniga uma talagelin muxaadarada tirada badan oo loogu talagalay axbaabtii aad joogto culimmadii aad jooga ayagaana ka hadlaya falaakiin furfurasha yar waxa maanta meelahan wareegaya waxaa ka mid ah in la yidhaah dadka nabiga xusaya oo mawlidka dhigayaahu farxadda ay ku faraxsan yihiin waa dhimashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa dhimashadii nabiga maadaama nabiga bishaan laftigiisa oo dhintay waxay yidhaahdeen nimanka dhiga waxay ku faraxsan yihiin nabiga dhimashadiisa bal qof ku faraxsan nabiga dhimashadiisa xaw nabiga ka jecel yahay xaw ka weynayhaa asuuqa taalla adaan annagu waxaan ka hadlaynaa waxaa weeyaan dhalashadiisaan ka hadlaynaa dhalashadiisuna waa raxmad ayay ahayd raxmaddii ayaan ku dhex jirnaa waxaan xusayna oon ku faraxsannahay waa dhalashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga dhimashadiisu tiiraanyo iyo murug ayay ahayd ilaa hadda laftigeeda qofkii taariikhda akhriya ama arka nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii ruuxa looga siibay iyo kalimaadku ka hadlayay markaa laftigeeda uu ka tiiraayoonaya markuu arko nabigu markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam taariikhda markuu akhriyo xadiis akhriyo dhimashadiisii iyo sidii nabiga nafta loogu dhibayay iyo meesha uu ka taagnaa diinta dardaarankeeda iyo markuu dhintay asxaabtu rag inay yiraahdeen nabigu ma dhiman qofkii yiraahdo waa la dilayaa
markii rag inta yimaadeen markii aayadii akhriyeen kulli aad moodo aayadaas ayada markaa la kala qaatay tiiraanyaday tiiraanyays ayaan weli ka teeraysan anagu nabigu markaad aragto nafta lagu dhibaa ka sheekayhaayo markaad aragto adna waa tiiraanyo haysaa waxaa alxaasil loo dabaaldegayaa waa dhalashaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xagga haddii la yidhaah nabiga noloshiisuna waa khayr dhimashadooduna waa khayr ilaah ku talagal subxaanahu wa tacaala marka waxaan rabaa adinkoo raalli ah in kalimaadka qayimka ah oo meeshaan loogu talagalay oo quseeya waxyaabihii nabiga ka dhaca calayhi salaatu wasalaam fadliga laga helayo ixtifaalkan isaga oo loo sugan waxa laga helayo in aan culummada u daayo oo joogta ayagaa naga xaqib tiri doona qofkii marka qalbi fiican la yimaado dhaga fiican la yimaado weeleeya asagoo buuxo qalbigiisa uu bedelayna uu tegayaa falaakiin qofkii qalbigiisa tiifow ku jiro tiifow unbaa u siyaadaya taa wax dhibaataa ma lahan taasu in badan maxaa yeele bishaa markay dhalato dad badan oo khayr badanna farxad iyo rayrayna u tahay dad badanna tiiraanya u tahay waxaad moodaa bishaan laftigeeda markay dhalato dad badan inay kalfaha soo qaataan oo markay soo qaataan inay bishaas xeer waxay yidhaahdeen kuwa meelaha wareegayaa bishaan xay xusayaan nabigu bishaan lama dhalinbe haye haddana waxay dhaheen 12 maxaa loo dhigayaa bil maalmaha kala badan yihiin horta adiga markaad sheeda soo gasho ood gudaha soo gasho ood ogolaato in ay bannaan tahay arrinkan arrin sugan oo yahay aad ogaato haddaad rabto ramadaan ka dhig adiga qusayda qofku diidama bishaa rabta ka dhig hadday dhaheen 12 ayadoo caynteeda sax ay tahay kutuba ay qabaan maanta haddaan joogo 12 macnaha ma ahan waa maalin adiga waxaa laga rabaa bishaad ictiqaadsan nabiga in dhalo haddaad istiraahdo nabiga rabiicul awal lama dhalan haddaad istiraahdo oo tiraahdo muxaramaa la dhigay horta muxaram ha lagaa helo inaad iclaam muujido oo leesuu kaa yimaado ilaa haddaad sheedaba ku jirinba waxbaa ka sheegsheegin dadka ilaahooda wata oo nabigooda xusanaya calayhi salaatu wasalaam ku salinaya hadda maanta meeqaa nabiga lagu saliyey dad badan oo maanta meeshaan aan fadhin ayaan nasiib u yeelan intay saliyaan falaakiin intii dhagaysatay maxaa yeele ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi qofkii magaceyga agteeda lagu sheegay ugu sallin qofkaas waa bakiil kaasa u bakiilsan adiga caal aqal hadday dhib kuu tahay waxaa la qaadayaa markaad muxamed aad maqasho sala allahu calayhi wasalam waxaa korkaada ku waajibaya inaad nabiga ku salliyo calayhi salaatu wasalaam haddaadan ku sallin soo maahan bakiil ayaa tahay bakiilna guriga sagaa weeyaan naarta weeyaan taas ugu matalaga insha allahu tacaala waxaan rabaa raalli ahaada soo dhowaada meesha waa meeshiinii waa meelaan wada goglanay waa meelaan ugu talagalnay insha allahu tacaala saan sheegnay daahfurka xabiibka bishii calayhi salaatu wasalaam waxaan ku soo dhoweeyay walaalkay sheekh cabduqaadir sunni oo u qaybi doona insha allahu taala culamada hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ikhwat alislaami waliimaan waxay noo tahay farxad aad iyo aad u qiimo badan maantay oo ah furitaankii xafladdii ugu horreysay ee lagu qabto waddanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi abaabulaha waxaan ka codsanayaa inaan u ducayno Sheekh Cabdullaahi Cali Aadan oo sanad kasta hiba noo bilaaba xafladda ugu horreysay in Ilaahay cimri dheer siiyo awlaadiis Ilaahay barakeeyo ridaha Ilaahay inta ugu weynta Ilaahay siiyo أن فاتحة ومرنا إلى الله سبحانه وتعالى أسألك أن نقول بديو فاتحة ورمضان إن شاء الله تعالى مركز بودو عين دونتا شيخ عبد الله إلى خير هسيو إخوة الإسلام aad iyo aad ayaan kugu soo dhaweynaynaa xafladan qiimaha badan leh oo maanta ka soo wada qayb gasheen farxayay noo tahay waxaan rabaa marka inaan guda galno qaybihii wacdiga culamaa u diin fara badan ayaa meesha ka muuqda oo jooga ilaahay cimrigooda ha noo dheereeyo waqtigoo nagu gaaban awgeed waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo sheekha ugu horeeya sheekh maxamed yuusuf wacays sheekh dhagax buur baad u taqaanaan oo malaynayaa magacaas markii la sheegaa soo xasuusanaysaan waa mudariska masjid الصحابة khatiibka intaasana ku soo jiray dacwada subxaanahu wa tacaala ilaahay iyo diinta fidinteeda sheekh maxamed yuusuf falyatafadal mashkuura الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأعزاء، dadka ahlullaahiga ah oo xafladda isugu yimid, waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan ka cudur daaranayaa inaanan ehel u ahayn in la igu bilaabo, maxaa yeelay dad iga mudan baa jooga. iyagaa fiicneyd inay noo bilaabaan xafladda, sidaasaa habboonayd. laakiin maadaama la ii yeedhay inaan isla soo kaco, waan ku qasbanahay. ehelna uma ihi inaan meeshan iska taago, waa laygaga habboon yahay. laakiin si kastaba ha noqotee, mar haddii la ii yeedhay, wixii ilaahay i waafajiyo unbaan dhahayaa insha allahu tacaala. bismi illaahi araxmaani araxiim. kelimada bisinka ilaahay ah oo sharafta ay leedahay idinkuba aad kasaysaan. waxaad ku kasaysaan qur-aanka kariimka ah 114 suuradood in lagu bilaabay iyada oy mabda u tahay, bilow ay u tahay. qiimaha ay leedahay waad iska kasaysaan. waxaa la yidhaahdaa basmalada waxaa ku sugan 3 ishaaro ayaa ku sugan. ishaarada u horeysa waxaa ku sugan basmalada ilaahay subxaanahu wa tacaala wujuudkiisa ayay daliil u tahay. ishaarada labaadna waxay u tahay ilaa wujuudihi sala allahu calayhi wasalam. ishaarada saddexaadna waxay daliil u tahay makhluuqa intiisa kale soo darinta uu soo darriyey. ishaarada ugu horeysa waxaa laga qaadanayaa lafduljalaalaha allah, liannahu calamu daati alwaajib alwujuud. allaha wujuudkiisu uu waajib yahay, ismigiisii weeyi. marka waxaa laga qaadanayaa lafduljalaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala wujuudkiisa ayaa laga qaadanayaa. midda labaad, ishaarada labaad waxaa laga qaadanayaa min lafdiraxmaan. lafdiga basmalada ku jira ee raxmaan ah ayaa laga qaadanayaa, lianna macnaahu almuncimu bijalaa'ili nicam. lafdiga macnihiisu waxa weeye ilaahay inuu yahay axad nimceeya oo nicmada bixiya, nicmada waaweyn ee nicmo ka weyn ayna jirin bixiya inuu yahay weyn. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم من النعم أجل النعم علينا. نبي الله محمد نعمة كون كلا كانه نعمة يقوى ينوي وإلهي المسيح مدى صدحا وحا لقى قادنا يا لفظ الرحيم محايا للفظ معنيه وحوي، لأن معناه المنعم بدقائق النعم. إلهي وحوي أحد النمعية نعموي كيرير مخلوق أو النمعية. ومعلوم أن ما عداه صلى الله عليه وسلم من سائر الحوادث دقيق بالنسبة إليه. مخلوق أردن أو كلي أو نبي محمد هاي markii nebi muxamed la garab dhigo waa nicmo yar. wain kaana cadiiman fii nafsi, naftiisa mid cadiima haba ahaado, wax weyn haba ahaado, laakiin markii loo nisbeeyo nebiyullaahi muxamed waa nicmo yar.
فما من نعمة مجرت إلا وهو صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأتم وأشرف منها. نعمة مجرته كون كلا كاني إلا نعمة هذه اللي إطلاقه وحقوه النبي الله محمد بأجل أعظم أتم أشرف وحنود عيننا سيدي الشيخ يهر هي وشيء إن شاء الله تعالى شيخ عبد الله آذن خير الله كل جزيه كاسا محمها ورد عيننا يسقى يا أولادي سيدتك سنة الله بركيه انت وحن قدر سنة يا نبي عليه الصلاة والسلام سيدة ورمي كعب الأحبار لما أراد الله إظهار النور المخزون مركو إلهي دوري نور كيسي مخزون كهاي لكي إلهي نصور صاره وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله وقصر صاره إلى بدن آمنة قبل آمنة ليلة إلهي ودورتي ومثل الجمعة من شهر الرجب أمر رضوان عليه السلام فافتح الأبواب تلك حفلة جديدة وحنا الله واركينا إن النبي جديدين نبي مركي الله صور جديدا باجري أو نقولين أو نبي نمني سان نقولين حفلة الرسول كان نبي جديدا وأن هذا النبي نمني سي الرسول نمني سان نقولين سنا بنقول شاركنا مركا إلهي وحده رضوان والأمر سيء إنه محمها الله رواقي إنه جنويك فره جنويك إنه فره isaga oo la tusinayo rasuulka darajada uu leeyahay qiimaha uu leeyahay meesha uu joogo la tusinayo ilaahay baa koonka oo dhan yaa aweysiiyay habeenka isaga ah nabiga habeenkii uu ku soo wareegay rixmiga aamina habeen jumca oo rajabna ay kow tahay bay ahayd laakiin markuu nabiga dhalashadiisa iyo intii ka dambeysay waxay ku dhisnayd isniin bay ku dhisnayd marka waxaan ku soo koobayaa hadalkayga calaamada rasuulka darajada uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay ilaahay waa la tusay oo waa kan muxuu ahaa xafladda aan u dhignay aan isugu yeedhnay allaha noo daa'imiyo xafladda rasuulka allaha noo daa'imiyo allaha nagu siiya amni iyo istiqraar waxay culimmadu noo sheegeen meeshii lagu xuso inay barwaaqadu ku badan tahay ayaa la sheegay marka intaasaan kusoo gaabinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh badan allah siiyo waxay la tahay wax badan ba hadda loogama baahna in la yidhaahdo qolaan diidan maxaa yeelay annagaaba dhiganayna marka bilficil haddaan u samaynay inay naga mashquuliyaan inaan ka sheekayno taariikhda nebiga calayhi salaatu wasalaam sanad kasta waxa weeye waa waxay ku talagaleen marka ilaahay khayr ha siiyo culammada aad bay noogu soo gaabiyeen waxaan rajaynaynaa marka khiyaaray in dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu farxo uma baahno waqti badan lagu lumiya waxaa la rabaa inaan si fiican u ogaano taariikhda nebigu soo maray calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii uu la kulmay iyo annaga midana laga doonayo marka khayr badan laa siiyo waxaan rabaa marka inaan kusoo dhaweeyo mar labaad culammadii iyadoo noo socoto mudariska iyo imaamka masjid saxaaba shariif cabdullaahi shariif xasan waan rajaynaya insha allah taala dib noogu soo celiyo maxabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo jumcooyinkaanu noo waday laakiin waxaa laga yaabaa dad badan inaysan aad u dhagaysan maanta waxaan aad u jeclaan lahayn in maxabada nebiga qalbigana degto sala allahu calayhi wasalam shariif cabdullaahi shariif xasan falyatafadal mashkuur الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم سلام كدب ولا ليال سي علمدي إيوه الرئيس بإنه شكتي إنه برارو جسي أما واقع بأوينة تسين يوني والبوغ يهي وحانكو سوغن هاي بداية أما باللوغة احتفالات فربضا ومحبين حبيبك عليه الصلاة والسلام أي سميان
bishaan iyo bilaha iguna soo fadlaba waad ogtihiin in badanoo inuguna nool Kenya muslimiinteeda muxibbiinta ka mid ah 6 bilood bay wadaan احتفالات النبي عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام كونك أردن أيها احتفالية للشديسة وجود كيسة رسالة ديسة أهانشيسة وأهادي رسول هذه الأمة رسول الرحمة وأحلقوا فرحوي حيواني جمادات أردن وحبيبك الرحمة وأها وحنو مركا كسوغن هاي بداية بلوغة احتفالات كفرها بدن يدعي دونه معمورة عن الدنيا دان أنه كنا الله يقود كذا ما لا بدن كمية يقارض هذا نبي عليه الصلاة والسلام وهو احتفال يا أهل الجنة محيّر وحصائر وقد ورد في الحديث حبيبك عليه الصلاة والسلام مقعيس إنه يهيمد كل له على قوائم العرش وعلى أبواب الجنة وعلى غرف أبواب الجنة إن أكويا له اسم النبي عليه الصلاة والسلام أحد إلهي احتفالي سبحانه وتعالى احتفالك إلهي ورسولك واحتفالي وحوي وينين تيسا إيا قرآن كيسا كريم كآيات كيسا ينبضن وكحصي أيو إلهي كشرفي هل آيات أو إلهي وكو أمان الرسول كأن عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى خالق الكون خالق البشر خالق الحبيبة خالق الجنة رحمة أحد كي أبو ريا هل آيات أو كو أماني رسولك عليه الصلاة والسلام وحان قاري كريم كون كان من بدايته إلى نهايته ومضها كنا الهدي وضع أمانة رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي هل مروا أماني حبيبك مقاري كرام إلهي هدو مر أماني أمان ومهر النبي عليه الصلاة والسلام وحانو كسوغنه مركا احتفالاتك فرح بدن يدعي دونه ده فركي سيبا انو كسوغنه سهوريب علماء الشيغين inoogu taariikhayeen maanta maalinka ay taariikhda ka galayso oo ah 1440 sida sheekhu inoogu kala qadqaday hadii loo kala qaadona fabiha wa ni'ma isaga ayaa inooga warramay taas walaalayaal hadii aan waqti u helo maxabada uu inoogu baraarujiyay walaalka Sheekh Abdul Qaadir waanu soo noqon doonaa لكن إن نسكب على رجلنا مركو هوري رسولك عليه الصلاة والسلام ويندي سوين هاي وإلهي ويني إننا إلى دون يرن وينينه إن وحير كير تطابنه نبي ولا عليه الصلاة والسلام أحد إلهي ودور توي تاشككم أجره نول بروى ووجي هاي إسقى أيان كنا هاي مؤمنين إسقى أيو رجهنا كحرن ياهي محيّل مذنبين من وذن هاي كلي وذا دنبابي لما وحن رجينا إلهي إنه نشفعه إلهي إنه دم بالدافو إلهي زلات كني يسنبري الحوين كني فرح بدنا وإلهي إنه قد بيه أحد كأن قد بين فضل جيسة نبي قوي عليه الصلاة والسلام لأن له الشفاعة العظمى إسقى يأسقنا تشفاعة ويني شفاعة وين وماشى رجها مؤمن كسته وكحرن يهوي أو إسوق إنه يهي دنبيله رسول كان إنه إلهي مسامحة ويدسو شفاعة دي سوقله ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى رسول كان وينين تسوي وينيي وحكم ده جميع الأنبياء والرسل إن أي نبي إنه أجايين أو إلهي أوجيسي وكلا دردارمي وشيء وصوبان دقي إلهي مركولي هاي وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم إلهي سبحانه وتعالى وحو كقاضي أنبياء بلنبو كقاضي وحو بلنبو كقاضي
نبي الله محمد صلوات الله عليه وسلامه هدو يمادو إلى رمينيان ويقرقاريان وينينيان وحي وكمضنا أي لمريان أي إلهي سبحانه وتعالى بلن وقاضي أنبياء وإيقنا بلنتي أي قاضيان waxay ku tusinaysaa ambiyada dhamaantooda rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam inay ahaayeen ala ilmin bih ay u cilmi lahaayeen oo ay ogaayeen nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay da'watu abi ibrahim wa bisharatu akhi isa nabiyullaahi muhammad kaleeyhi salaatu wasalaam nabiyullaahi ibrahim oo abihi وإلهي القرآن كيس كلي أن اتبع ملة أبيك إبراهيم أي إلهي ويديسنيا إسقى هري بلن لوجا قاضي أو بلنتي وحنبارسيهاي أي مر لبعد ويديسنيا إلهي سبحانه وتعالى الرسول كأسجى إشارة دي سأوها يو إن ذرية دي سلقة صور حصاره ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب إلهي يو صار صوبحي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم دحدو ذا إله كسو صار رسول إيجا كميدة رسولك نبي الله إبراهيم ويديسنا يو إلهي إنه كسو حصاره ذرية ديسة والنبي الله محمد إلهي ويديسنا يا إن لصو صاره رسول لقصو حصاره إيجا كميدة ذرية ديسة يتلو عليهم آياتك تشهد كو آخرنا يا آياتها رسول كاسي والنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هاي ويدي سنة يا نبي الله إبراهيم نبي الله عيسى مركي قوم كيسو يمد وإلى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم وحولي هاي مركو أشاقين رسولك إلى هاي أصدر إياك أوي هاي يوحلي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد درأ حالا هميكي كوب شارين يو رسول قال شيء إيمان يوم عيسى أحمد لي لحد هي بني إسرائيل بو نبي الله عيسى أقول بشارين يا إنه إيمان يا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى أنبيادي وصادري كانت تفتخر برسول الله صلى الله عليه وسلم أرنك هدوح كتسي وحاولوا كتسي يا حبيب كان عدمدي سي وينيد إلهي أسي الإمام فخر الرازي تفسير كيسة مركو كهل لي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وإلهي إلهي هاي تاسوا الرسوشة بركة ذانا برأة كفضلني أيو كهل يا فضلك حبيبك عليه الصلاة والسلام وإلو شيء يا أمضوه إليكو إجماعين معها أمد النبي الله محمد بل الأمم كلها أنت أهل أديان هذا الدين تفهم سريد أنا منحرفين تأنا نهين waxay isku waafaqeen inuu xabiibkeena yahay afdal rusul waxyaaluhu u soo qaatay waxa kamid ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin alaminta rahmad inuu yahay wa idha kana lil alamin fa huwa afdal al alamin rasuulka war hadii alaminto dhan uu sugnaaday oo loo soo diray idan huwa afdal al alamin alaminta kii u fadli badan weeyay حبيبنا عليه الصلاة والسلام جميع الرسل وحي إلهي أوسيي وخصيصة مزيئة فضيلة حبيبنا إلهي وحسي وحكسي فضي بضا وحي معجزة لسي أنبياء لسي حبيبنا إلهي وحسي وحكسي وين ومعجزة صادرت هذا أيها إمام بوسر وحليه وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم معجزة كستا آيات كستا وآيلة ما الرسوشة فإنما اتصلت من نوره بهم معجزة هي فضيلة أنبياء أي وطان إلهي أسي إلي مادين حق النبي جينا عليه الصلاة والسلام بيكله حريرسنت هاي أنبياء
وحكو تشبيهي فإنه شمس فضل هم كواكبها وحال يرهدا كون كان أن نكون نولنا هذه الكرة الأرضية قرحها والنور كجو ودم بقرحها واي وإلهي أكيري حقيقي ذاتي أما وحي كسوهري أو من بقية الكواكب بما فيها القمر كواكب تكلو حتى ضيح أو كمديهي وحي ككسبنيان نور كقادنيان قرحها وافتين لكن افتين هذا افتين ذاتي ما وافتين مكتسب من غيرها فكذلك فضل حبيبك عليه الصلاة والسلام هو أصل الفضل فضل قولن أصلك وهو فضل حبيبك عليه الصلاة والسلام لقصوا بالله من نبي الله آدم لقصوا بالله إلى لقصوا نبي الله عيسى لقصوا قارو رسول كان سيدا مجي عيسى إلهي وإلي حريريي وعدم هذا أقوى كنت سنيس إلهي أوسي حبيب كان عليه الصلاة والسلام نبي لسي مره إلهي مجي عيسى أيو لحريريي مجع حبيبك عليه الصلاة والسلام قفك مؤمن من نقنيو إسلامنا من نقنيو إلى ومجع حبيبك كل حريريو مجع إلهي سبحانه وتعالى وأويله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلهي سبحانه وتعالى آذانك وضرت إنه آذامينه مجع عيسى وحلال حريريا مجع حبيبك عليه الصلاة والسلام قرآنك لا حسر ولا عدد هو كهذا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله بيعدي حبيبك اللي لقى لي إلهي وحكرقي كأنما بيعة لله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إلهي بيلا يد الله فوق أيديهم إلهي وحلي سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله رسول كنكي أطيعه إلهي وبأطيعي محيي لا أطيع حبيبك لا أطيع أيه وحيكون تاجتها يكون قطنته وددي إلهي سبحانه وتعالى وأقرر أمدان ويبقى حبيبك عليه الصلاة والسلام هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى طريق جارسين أمد إلهي كحريو جارسين النبي وإنه عليه الصلاة والسلام إذن أطيع عدي سو حيكون لقنتها طريق إلهي جارسين أود قادوي وإلهي أكو قرر أكو جدي رسول الله هو الطريق المستقيم إسقوا طريقة مستقيم كأ أضمها إلهي كحريو إلهي جارسين لذلك أي من يدع الرسول فقد أطاع الله صادرت هذا أي وحول بإلهي وحو كحري حتى محبتي إلهي أضمها وجعلانا وحو كحري أطيع عدة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام محيا لاتباع عيسى أي وحو صوب النقنية إلهي سبحانه وتعالى إنه مؤمن كجعلاده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلهي أضمها وحويدين يا أولا هداتهن كو إلهي جعل أما جعلك سدون هداتهن ورت جعلك إن إلهي جعلاتان أدلة ذي علامات كذا وحوية إن أطد حبيبك الرعدان عليه الصلاة والسلام إلهي بان جعلها رسول كان مرة عيه ميا طريقة دي بعض المريض إذن متابعة الحبيب صلوات الله عليه وسلامه دليل على أنك تحب الله ورسوله إلهي رسولك إلى جعشهي وحاء دليل إلى رسولك الرعو جزاء هذا مركز النقون يا إلهي إنه أدونا كجعلاده فاتبعوني يحببكم الله الراعى أني والنبي الله محمد جزيه إن مركز وحو النقون يا إن أدوك إلهي جعلاتين دليل كيدين بالله إليه وحكون اللي دينكو جزينا يا وحاوية محبوبية الله سبحانه وتعالى وأن تكونوا محبين لله سبحانه وتعالى إن هذا هاتانكو إلهي وجعليهي وإلهي محبين وإن النقطان تلقوا قاري يويا آيات وحال يلقى ترغيب بدن ومضى نبي الله محمد دينتي سئنا يقاتان آيات محايا لأعلى مراتب العبودية وحاوية المحبوبية مؤمن كمال وقارو ماشي وقص الرئيس وحاوية
أن يكون محبوبا لله إلهي أكو جعلاده درجة كدام بيسمله أدوم كادو إلهي جعلاده إن أدو جعشها معها إن أدو جعشها إلهي جعشها شيء وناكسوي لكن درجة كوين وامحي أن تكون محبوبا لله إن الإلهي محبوب أحد إلهي وجعله آد نقطوي آيات دا وحي إنو شيء سامركه درجة أقص الرئيسة وحل وقاري إنها تهي متابعة الحبيب المصطفى صلوات الله عليه والسلام رسول كان صلوات الله عليه وسلامه إلهي درجة أقارسيي استقعوا ببشرة حبيب كان وبشر ولكن درجة بشرنا أوسن قارسين ملائكنا أين قارين جننا وركي ما بجرو أيو إلهي قارسي أدونك وأدوكتهين إلهي سبحانه وتعالى رسول كان مركي لدى البيي جبريل هو معلم الأنبياء أرضيقة يا معلم كيسة سيهين هذا يجعل أرضيقة وعقيدة سيهي معلم كإنه يا أحد كي وحبريي ساقو كسر رأيو inta badan muallimka umba aqoonta ku badiya arday ka badiya illa marka dambe oo hadii uu laga yaabo marka dambe oo hadii ardayga uu noqdo mid bulkacsaday oo wixiisa la soo bixi karo waxa laga yaabaa intii hadii sheekhiisa ama muallimkiisa uu juhdi sameeyay in ka badan inuu sameeyo oo ahaado aclama min sheekhihi wa min muallimihi wadii kartaa maca dalika xabiibkeena alayhi salatu wassalam habeenkii la dhalmiyay درجتي قدام بيسك أو مخلوق وجاري كريم ماشي وجاري كريم هل كيبوكوها كذا رفيقي سي قدام بي وحلا رفيقه وأها جبريل أو إذا هل كأنو حضنت الله بضعفه حائق بيا لاحترقت بالنور الجلال الله جلالك جليلك نور كيسانكو جبريا وأنت تخترق بنور الكمال أدو لكن وحى أريج يجوبي وحد كو جيحي ساعد كو رافيسا نور الكمال وكإله الكسية حتى وصل إلى درجة لم يصلها أحد قبله ولا بعده ولا يصله بعده إلهي وقارسيي درجة بال وسنهرتي سنة قف قارين قداشي سنة وقاري دوني كنت سنة يوي أدون كان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلامه إنه أها مختار الله سجان إنه شيء عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من إن الله اصطفى قريش من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار رسول كان يساوي حولي أنا سيد ولد آدم ولا فخر فأنا إذا ما إنا شيء قوي رسول كان وإنه سجى نوشة وسان نوشة يا إنه يهي سيد ولد آدم وحوكفانا يا ما حبيب كان متواضعا وليس مفاخرا مفاخر موسى حبيب كان عليه الصلاة والسلام نبي نمضنا إلهي وحسيي وآدم بين الطين يسوى آدم وكسو يهي مجندل وياهي مجندل روح طبعا لو وقفوفين أيو إلهي حبيب كأن النبي خديجة نبي الله آدم الله صارينا وأجا صدرت هذا بعض المفسرين وحيليهن نبي الله آدم مركي توبة كيني أنبيادو وحال لي وي توبة كينيان وحاوي يعني dadka abraarta anbiyada oo kaleeto waxa lagu canaanayo ama way ka toobay keenin la leeyahay annaga waxa cibaadada iyo taacada inoo ay wadi laga helaaba masaa'il ay ku ijtihaadkana waa u bannaan yahay anbiyada oo kale way waxa lagu canaanayo walaysa damban maxay yeelay waa macsuumiin anbiyadu macsuumiin way ilaahay ba ka dhowray dambi ma aha nabiyullaahi aadam inuu dambaabay رسول كميدة النبي أنبياء كميدة ما دنبابين ما ندنبابين لا في صغره ولا بعد بعثته مدنا
إلهي وحولي فتلقى آدم كلمات وحي كل شيئين نبي الله آدم إنه أركي نبي الله محمد ما عيسى أو لو قري تحت قوائم العرش سهري بوشيغين أو يدي أو يروام حوحا ماشان كو قرن أو يري وحاوي ونبي سيولد من أولادك من صلبك دبر هذا كإيمان دونه وما ظهر دم كإيمان دونه وإلهي وقول توصل أو يري إلهي يو وحن كو توصل يا أدون كان نبي كان إلهي سبحانه وتعالى توبدي سيدك أخبري ولا ليال وحنو احتفالينا وأحد كاكون كونو احتفالي لأن شديس بانو احتفالينا النبي قالنا عليه الصلاة والسلام يسجل نفتي سووا احتفالي ويني وما لما كان وكسوعي تاسوا مشهور بأكتر إن كنت وحلز ويدين يا ملا ما يسجل أيا ويني مالك كان مانتا يسجل أيا ويني مالمه كلا ومضاها كلا أنبياء كلا إلهي ونعمي إلهي بقرآن كيس إنه وش شيء إن مالمها إلهي سبحانه وتعالى أنبياء وخير كسيي ونعمي شدائد وكفرتي مالمها كلا كسو عن إن يهين مالم الله حصي مالمها كلا كسو عن لحصوصانيه كتبتي أنبياء التي يقرني رسول كان عليه السلام حديثي بعد أركتين مركي ومدينة تجي يوحي أسجي يهود نحمري عاشوره وحي هاد بعد قرن إنسان نبي عليه الصلاة والسلام استجا أيا نوجدي إن المانت مالك وحبيبك الرشيء إن المالمه كله كسر عنه كدواناته مالين كدوان ويمرك حمرك اللي دون يا سيد مجالسنا نسكو إيمانينه وحكلو كوين إن صمينا اللي دوني وامحي وحاول إن نكد ذا الحبيبك متابعة ديسة يدقن كيسو إنه قادرنا رسولك دقن كيسو إنه قادرنا قلبي جينا وهذا جر إنه كدون دونه إنه كرهادي إنه أنا سكود إنه كو أبورنا كالجعل الذي سي محبة ديسة النبي عليه الصلاة والسلام صلي جيسة إنه بدينه محيله صلي حبيبك بركات فربنا باقصوا محيله مجالس تلسكو إيمان أيو مجالس تلسكو إيمان النبي قال له صلى عليه الصلاة والسلام ومجالس الذكر أدوكتهن إن ملائكة هرين يسوع يدبول يسوع أو دتنا دعاء إن أي لا دعاء سنة يسوع آمين سنة يسوع صلى إنه كصلينا حبيبك الله بندقيه لذلك يا ابن جزري رك بدنه أي ماذا كمد إليهن حسك حبيبك عليه الصلاة والسلام مواليد سلسكو إيمان أيو وحيالها خير كلا سمين يا بركات وهذا حبيبك حسك يسمو أجوه الريو وحو هي أمان صادرت هذا مركه إلى النية كو قبلنا مركه وادوقتي ما أنت وح عالمك كدعية لبعضها أنت كلمة يكسو جبين يوي ومدى نبي الله صادري مجا إسلام كشجان يسوع إيمانك بهايستان الله ودايو الله وزياديو ووحفي عن لكن ما أنت تقنّا ضجيره مركي متابعة إن لجوّاي حبيبك عليه الصلاة والسلام متابعة ديسي إن لجوّاي محيل هذه متابعة حبيبك أنه لا إيمانه وحنو أهان لهن ضد إلهي اسمدي سكسوغان عنايتي سكسوغان رسولك إلهي بوحولي حديث القدس رسولك سو شيغيو عليه الصلاة والسلام أدونكيغا هدان جعلاادو أنوغو أن جعلاادو واتيدا إنو كهدليني محبوبية الله لو محبوب إلهي أون نغدو كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لأعطينه هدان متابعة الله إيمان لهين أو ضد طريقة مستقيم كنت توصل أنو أهان لهين وحاوي لبكم ما أنت جوجو إلى هاي مركان أتضرع نمض وكقاضي لها وهذا ركتان ما توحد لبات داعس يما وحا كداعي وهذا كيسان عالم ك لباتدي كدعد لبات عالم كدعد وقت كان هذا حديث إنه كسرنا هاي وحيله هذا تاريخ إن بدن كدوجا وواح جار كذا لكن واحد هذا اللي ديوان قلنا يو لباتوين كسنة ده لما عيا عصر ينضعيه تي وح ما يبقى كداعيه ما قالك سود دوشي مايا ضد الإسلام شيئا يكدوليه أو ما تدي لاينيه oo dhibaatada u geysanaya islaamka waa dhaxay isku laynaaya oo xataa aan isu daynin intii meesha wada joogtay mandiqada wada deganayde adduunkii uu ku soo duulay iyadoo loo kala safan yahay ya islaamkii baa laynaaya caruurtii iyo maatidii meel kastana way ka taagan tahay haddaanu nahay maryooli dalkeenna waxa ka taagan waqtiga ugu dambeysay wixii ka dhacay waad ka warqabtaan caasimadeen meel kasta oo baleek waxa la wixii dawlad islaam sheeganayay magaca ka sheeganayay لكن معناها متابعة أي نكون بدبادي لهن لجوايي
intoodii muhiimka ahayd ee farta lagu taabanaya waxa la wada burburiyay acdaa iyo in inaga mid oo acdaad ay u kaashatay ayaa burburiyay nin baa laga sheegay maamaha ay ahayd nin laga ma sheegin maamaha waxay ahayd guduntii baa geed lagu gooyay markaas uu geedkii wuxuu intuu hadlay waa loo hadlay asaga muusan hadlinay gudun yahay ya gobolkayga kugu jira yaad ugu goysay maadan goyseen caalamku islaamku haduu asagu islaam dhab yahay isagii baa la isu isticmaalaya la isku burburinayaa dibka maanta joogo muusan jireen halka maxay ina gaarsiiyay mutaabacada nabiga kaleey salaatu wasalaam iqtidihiisii ku dayashadiisii sunnadii inaanu qaadanno ayaana laga waayay isha marikoonka waxa dhibaato maanta ka dhacayso kulli islaam bay ku dhacaysaa ama ha ahaado balad islaami ah sida hadda aanu ognahay bilaada islaamka maanta ay ogtihiin ee aan la tiriinka wada garanaysaan kulliba waxba hadana sheeshay uma baahan ama ha ka dhacdo balad aan islaam ahayn laakiin islaam lagu dhibaataynayo oo looga badiyay sida hadda Burma iyo China ka maqlaysan waayahan wax ka dhacay hada waxa meesha uusan islaam aan baladul islaam aan ahayn islaam baa lagu dhibaataynayaa meesha islaamka uu ku badnaana islaamka in baa la isku dhibaataynayaa waxa soo dhan waxa weeye markii laga waayay mutaabacada xabiibka kaleey salaatu wasalaam ahadka xuskiisa inuu iskugu nimid maanta inaanu jecelnahay aanu sheeganayno Allah inooga dhabeeyo waxa aanu sheeganay Allah inooga dhabeeyay markii mutaabacadiisa in laga waayay ayaa heerka maanta islaamka uu gaaray aanu gaarnay marka walaalayaal waqtigii inaan ku yar turunturadaan u malaynaya Allah inagu anfaco insha Allah maxabadaasna uu sheekh inoo waqti kale baa laga hadli doonaa ama culimada iyadu ka hadli doontaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميكروفونka sida la ugu qoray magaciisa faqiiheena weyn Sheekh Cabdulqaadir Xaashi Diini oo inoo soo jeedin doona insha Allah taala kalimaad nasiibka aan haysana waxa kamid ah culimadeena maanta meesha fadhisa markaan mas'alo u baahano lacag na laguma xiro faylna ma galno lamana yiraahdo sheekhi waa maqan yahay waa culimo markaas noo diyaar oo masaa'isha diiniga inay noo sheegaan diyaar u ah fiqigi iyo dhammaan marka inaan ka faa'iideysano insha Allah taala waa culimo Ilaahayna siiyay marka faqiiha Sheekh Abdulqaadir Xaashi Diini falyatafadal mashkuura alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina ونبينا وحبيبنا محمد نور القلب وغرة العين وعلى آل سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيب شفيع الأمم صاحب الجهد والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتي ورئيسي انتي أي لهدين ويكوبوا أهي مهد علينتا شيخ عبد الله حفلة افتتاحها ونو سميعي عن سهول نمد عليه الصلاة والسلام نبي اجتماع عيسى محبة عيسى صلي عيسى تذكير عيسى إلهي محمد عيسى إلا عيسى إلهي حصيو مدح عيسى الله راجيو وحا خير كلاه إسلاك وقبنا يا إلهي هو كلمي ثانيا وحبة المرة بين الإرادة باش أن السيد هو افتتاح ما هبونا وحيابها هذا سيدي علماء هرب وهذا الشيء dadka indhaha la
oo dhagahala oo qalbigala oo kaliya aan horan karno waa wax islaamka lagu fidneeyay waxa ay iska sheegeen iyo ictiraadaadkooda ma habboona xaqiiqiyan xafladahan aan isugu imaanayno aan rabno inaan ruuxdayada wax ugu samayno aan isku xusuusino alayhi salaatu wasalaam xabiibkeennii aan ka kasbanno bishaaradii weyneyd ee uu noo sheegay oo ahayd maxabadiisu inay tahay waxa cid walbaba badbaadinaysa in waxaas kale oo ictiraadaadka oo cudurka lagu soo daraa ma habboona waxaa kuugu filan oo keliya masal kuu noqon kara fikrigaas ixtifaalka rasuulka salligiisa maxabadiisa tadkiradiisa fikrigaa diidahaya intaa hadda laga hadlayay oo caalamul islaam cadaabta ku noqotay fikriga wada wey waa ruuxa madhabkiisu yahay 14 October iyo wax la mid ah madhabkiisu iyo fikrigiisu yahay waxa uu ku sheegay inaad dhageysato ma ahanba inta kugu filanna waa intaas waa qofka aad og tahay ay ciwaan u tahay war masjidkan maanta maxaa jamaaca ku jirta qofka qarxiya muxuu heli lahaa ajir waa madhabkaas marka si ahaanta yada ixtifaalada yada oo dhan inaan dhinaca ku mashquulno inaan warkooda soo qaadno in ay waqti naga qaataan inay qalbiga naga dhaawacaan maaha kaliya waxa weeye seenbari inaan ka hadalno waxaan isku nimid iyo waxaan ka helayno nabiga calayhi salaatu wasalaam ijtimaaciisa iyo kulankiisa ixtifaalkiisa salligiisa inta hadda ay culimmadu sheegeen weeyo waxa aad ka helaysaa waa maxabadiisa haddaad maxabadiisa heshidna naajix baa tahay wax kuu dhiman ma jiraan haddaadan maxabadiisa lahaynna khaasir baa tahay asaguna sidaasuu noo ahaayo ilaahay baa qur-aankiisa noogu leh wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin naxariistaas buu ahaa ilaahay noo sheegay ilaahay baa qur-aankiisa noogu sheegay aayaddii shiikhu iftitaaxa noogu bilaabay inuu ahaa wax ilaahay nagu manaystay weliba lafdi aanaan cabiri karin ilaahay ku cabiray laqad manna allahu cala almu'miniin id bacatha fiihim rasuula min anfusihim yatlu calayhim aayaddaa dheer ilaahay noogaga khabray tamanun iyo manaa ilaahay ku sheeg asna wuxuu yidhi ana araxmatu lmuhdaad waxaan ahay naxariistii ilaahay iisoo keen hadiyeeyey lidaalikow meel kastoo adag iyo meel kastoo sacbi ah ummadda mashquulkeeda u ducayntooda baryada ilaahay oo u baryahayo ayuu meel kastoo adag keliya ku mashquulahay dhib kastoo asaga ku yimid aanu fiirinayn dhib kastoo jira aanu fiirinayn hameenkii isrihii axad waxaa ugu dambeeyey baa la yidhaahdaa ambiyadii ilaahay aysa sii arkeen nabiyullaahi ibraahim abuuna ibraahim dardaaramo badan buu faray calayhi salaatu wasalaam ay ka mid ahaa xadiidkii mashhuurka ahay ood garanay sida uu ku lahaa ummadaadii igu salaan wa akhbirhum ana aljannata biicaan yacnaa ardadu waa dhul iska bannaan waa dhiraasuhaa subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu allahu akbar dardaaramadaas waxaa ka mid ahaa waxaan ogahay buu yidhi inaad caawa ilaahay la kulmin haddaad kari karto u weydii ummadaada wax ilaahay kulankaas aad la kulmayso saasuu meel adag iyo meel walbaba bidaaya maalinkii baxsiga la soo saaray asagoo dhagaxu ku socdo oo la dilhayo ayuu lahaa allahuma kfir liummada ahna asagoo siraadka ag taagan buu leeyahay allahuma sallim 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 ilaahu badbaadi oo nabadgeli oo nabadgeli oo nabadgeli shadaa'id kasta sidaasuu wuxuu u ahaa ummaddiisa ou lahaa nolol iyo adduunka intuu ka tegayba
وهذا رسول الدنيا كتير ونو شيء عليه الصلاة والسلام عمل كينا أو نبى الله يسوكي الله يبندقه وحي خير إلهي بأن هذا وعليا وحي أنا ركود دنبيه أعماشي سنة إلهي بأن دنبي دافي دي ويديه ولي السجنة مركي أو سيدا يلي إلهي بأن نوشيغ وحنا النبي قال نوشيغ عليه الصلاة والسلام مركي أو إلهي سانا الله هسكلي أو قارين أو يقول والله إلهي أو رادين نقول ما هي أمد إذا متكملة أنتم نارتو كتشروا محا إلهي كيري إنا سنرضيك في أمتك ولا نصور وكقرنا اللي قالين دونا أمد دارا حماننا كلمات كل ما يصير أو حمان كاغا سمين مين وكقرنا اللي قالين دونا أمد دارا إلهي مال أبد يا مال فضل بوكرنا اللي قالين هي وحا أو ربه أي إلهي مروا بوفينا يا سيدة عايشة أيوة لا يضحي والله يعني وحا نكوار كهيا وح الله وحها ولاد وجعشين إلهي ودق دقاير وكوف اليوم مالك حالك هذا يا مالك وفضل يا مالك وفرحسن يا مالك دبتلو مدول بو إلهي مالك بدر أي واحد إلى ملائكة تغانين أدوتي تسدد ودوتي هنا وأنت بدل يجوا هوشي فدي مركي دجال كده ما أدري بيجي مالين ملك جبريل يا ميكائيل مركز يجرها يا محمد هل ترضى إن الله أمرنا ألا نفارقك حتى ترضى فلمت صلوات الله وسلامه عليه يا رسول الله مرات النقطة بالي لا هي وحو نامري إن أنا كاسو تغني لا أفراد النقطة أفراد بان هي مركا انتاس waxay asna ilaahay ku raadi galinayay asna ilaahay u hoosfadiyay ummadiisa yahay waa sida ilaahay noogu sheegay quraankiisa naxariistaas buu ahaa ilaahay noo soo diray quraankiisa ilaahay noogu sheegay makhluuq oo dhan uu soo diray asagu waa loo qabrayo leeyahay naxariistaas ilaahay ii soo kadin hadiyay baana inta yar ee aan samaynayno waxa runa xaqiiqiyan qofka نبي الله محمد أنا ضدك وصعني أن مجلس وصعني أن مغلكيس وصعني مركي دقاق أو كل عه مجلس أن درين كهلي نشركاجي يا قلبي جاجي إيمان كأتشيء أن يسوق حياه إلا ما هو إلهي دي بقول نغو وإسكودي إن وحكوا وصلنا إلهي كازوليو وعذره oo ilaahay oo ku marsiyo dariiqi wanaagsanaayo oo ilaahay naga rabay nabiyullaahi maxamed itibaaciisa iyo diintiisa inaanu ahaano quraankiisa baa ilaahay noogu sheegay asagoo ummadii hore ka waramaya awaamirta ummadii hore ilaahay siiyay asagoo ka waramaya ilaahay iyo sidoo ambiyadii hore iyo ummadoodii ula hadlay markii laga soo sheekeeyo quraanku nooga soo sheekeeyay baa khatimkii maxuu ahaa ilaahay ummadii hore ku leeyahay falladina aamanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun kuwa kaliya ah bil muflihun falladina aamanu bihi nabiga aan idin soo sheegay aan idin leeyahay markuu yimaado wax badan oo xarajaha meesha ka bixin awaamir badan oo culays ah oo dadka saarnayd baa ilaahay dadkii ka qaadin دين فضوض وسمحابة لو ديبي فالذين آمنوا به كوا الرمية وعزروه إعزاز سمايا وكان إعزاز مت كان سمين النووي إعزاز هي تعليم بشخصيته وين يكون ويناته ونصروه أقرقاره لكن اللي تشوقي يمركب كتغبا ودين تسي أقرقاره واتبعوا النور الذي انزل معه شريعتي لا سود دجيين الراعه انت سي حقيقه كومنتا اولئك هم المفلحون كوا كليا مفلحين الليبانيه يا الهي انت كومنت امدي هور الله سي شيء marka annagu kuwii maalintii la joogay ee indhahoodu ku raaxaysanayeen qaarkood xanuunku ku dhacayay khudbadayadii shalay waad maqlayseen shariifka ilaahay carabkiisa bir iyo boog baa ka ilaaliyeen
rag aadii fuga muuqata intuu arkay oo yiri nabigu maxaa kugu dhacay markaasuu wuxuu yiri wax kale iguma dhicina wallaahi markaan aragtidaada waayo baan noocaan noqonaya oo indhahaygu inay ku arki waayaan cudur oo dhan waxba igama maqnaanaya mid kale wuxuu ahaa oo saxaabi ahaa marka uu halkaa fadhiyo indhihiisu kuwii furnaado oo nabiga uu sidaa u fiirinay oo weydiiyo nabigu wuxuu yiri waa maxay wallaahi ya rasuulallahi ataladadu binadrika buu aragtidaadaan ku macaansanaya oo isha inaan kaa sii jeediyo ma kari karayo kuwaas waqtigoodii nasiibka ugu yeeshay wuxuu yiri sayid cumar inta la ammaanay cadaaladii islaamka uu sameeyay iyo wixii weynaa ayuu maxay yiri wallahi la laylatun wa yawmun min abi bakr khayrun min umri umara hal haminu abu bakr soo maray يا عمر iyo waxa la wuxuu sameeyo dhanka khayr badnaa habeenkii wuxuu ka sheekeeyay ay ka soo wada bixeen Makka oo ciriiriga aad ogtihiin nabiyullaahi maxamed lagu sameeyay oo Abu Bakar oo kaligiisu la socdo mar uu ka hormarayay mar gadaal ka marayay mar dhinacan ka marayay mar dhinacan asagoo mar walba isle calku meesha idinkaga hor yimaado midka calku haleela adiga hanno رجل النصيب كأي شيء إلا النولا ونقولنا يقعد عدول بك خير بالناية لكن النجوى نقول له هذا الكلام كسر قاب سنة كوي النبي يقول بشاري عليه الصلاة والسلام أو يري من أشد الناس اللي حبا أما من أشد الناس صوت هذا من أشد الناس اللي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رأني بأهلي ومالي دتك وقلت شعيل كبضا وحاكم ذا أما دد إيمان دون هذا كبعدي وانا يو هذا إلى كل من قفك كمده أو تمنن عرفت ذا إذا مر إنه أركم حولي سي أهل كي سي قرقي سلم بأواي عرفتي أو أرككلية سي صلها دتك وقو إيمان كوي وقلت شعيل كبضان أنا قاعد يقول شعيل وكواس بوي ما هو أرجنا يواسوم أرجنا وينجوا الرجال تدك يجي من دقة يضكون ولا يقوى كلا بدن لقى يا أبو تمني إلهو يا أركا إلهو يا الله كل ما إلهو يا ماشي سي تجاسر ولا ميدو نفتك الدعيسي marka hadii aan noqonin kuwii maalintii la noolaa ee nimcada weyn helay ee la gaarsiiyay nabiguna yiri calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi ahaa baa dacwooday wuxuu yiri nabi allah inaan munaafiq ahay baan ka cabsanaya sababtu waxa weeye inta aan kula joogo qalbigayga wax kale ma soo marahaya waxaad moodaa naartii jannadii inay ii muuqdaan laakiin markaan ka tago waxaan galayaa reerkii baan iskala ciyaarin familkii baan la shaqaysan caruurtii iyo xoolihii iyo marka isbedelkaas nifaaq baan u malay wallahi markaad ila joogtaan saatiin hadaa daa'imi lahaydeen malaa'igta wadooyinkaydu ku salaami lahayd buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo gogashiin markaad ila joogtaan marka ilaa maayatu rahmi dhax fadhiyaan markaas halka uu agtiisa qurbigiisa iyo la joogkiisa iyo aragtidiisa inta oo dhan ayaa naxariisahay إن شاء الله وحفر بدن وإن شاء الله ما كشك يصدقنا ما يسكت شيء دونا هذا مركب كوا نقوم وينين كوا استنبول كلمة ما نقول أما كوا ودو أما كوا كحية حبدي وين الدين لك كوا يوحنا على كهل عبد الله بن مسعود بحديث الويدي مركي أو يري قال عليه الصلاة والسلام أيو اسبدلي مركب حيق بعقبتي وحالون بها يهبون يري السداس هكذا أو مثلها أو فوقها أو دونها أو غريب ذا وحكبضا كله لكن مرنبا خليها يسكن غن مرنبا تأثير كالنبي محمد قف أو خلي كيه أبر كيه مرنبا هالنقل سلاسو كلا نقول مركم مجلس مغلا يسبدلي أو غيلي أما مدون أما مدون درجة مركا هدي عن محبتي وينين حتى وينه مد حوجاء اسبدل هذا الحتى نسكان نسكيلين
maxabadiisi taahiirkeeda isbedel daati aan yeelan oo cidda la sheegin horta waayo ugu yaraan aan lahaan yaa laga sheekaynaya maxabadu iimaankaaga ma jira iimaan kale haddaadan maxabada nabiga lahayn iimaan ma lihid asagaa noo sheegay natiijadeedana wuu noo sheegay oo inta maxabadiisa loo inay maciisa ahaanayso natiijada lagu gaarahayaana taa inay tahay wuu noo sheegay إن شاء الله تعالى إلهي وحن ويديسنينا كو انت نوليه المحبة سكون هذا منهج كيسي كون هذا نشر الدين كيسي أسأل راضيك كاها إلهينا راضيك كاها في دي إلهي هنقدقو مركي يدو يدك كتغان كو معيسى نقضى الله هنقدقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي قالت كان اسكال مركز مقع الشيخ أسأل دفانو الشاقي شيخ عبد القادر قيبة الله شيخ عبد القادر باجوري marka waxay la tahay maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xuska nabiga qof aqligiisii gaarsiiyey inuu saddex hal ka dhigo saddexna hal ka dhigo ka warsamayno saad la socotaan tawxiidku waa hal waxay dhaheen waa saddex naagta lagu furay oo saddexa waxay dhaheen waa hal marka qof aqligiisii gaarsiiyey heerkaas ama nabiga calayhi salaatu wasalaam wax uusan noo sheegin maxaa markii qofka soo islaamayo tawxiidku baa loo qori jiray lama dhigi jirin tawxiidku waa saddex uluhiyya rububiyya kada marka ma anzal Allah biha min sultaan dad heerkaas gaaray marka ka warsamayna maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xuska nabigeena sallallahu alayhi wasallam culimada khayr badan Allah siiyo xafladii weyneyd ee mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee banbaxa ahayd waxayna soo gaarsiiyeen howlwadeenadii inay ku aadan tahay 25 bisha November oo maalin axada kuna beegan 17 bisha Rabiul Awwal inaad ka soo qayb gashaan qofka sare u sheegtaan aad iyo aad ay muhiim u tahay markan waxaan rabaa inaan ku soo wareejiyo mikrofoonka si uu mar labaad inoogu tacsiyeeyo noogu qatimo xafladda Sheekh Cabdullaahi Cali Aadan oo ahaa abaanduulihii iyo muxuu ahaa sheekii hawshan oo waday شيخ عبد الله على هذا فليتفضل مشكورا. الحمد لله. إلهي يا ما أسكره خري يدب يا أوسط انتبه أن قفكي أنكم مهدين ضدك إلهي كم مهديو وأنكم مهدين مع العلم muuqaalka sharafta leh amiridda sharafta badan karaamada ee maamuuska wadata mawciyada qalbiga dilaaciday nuguna xiraysa haddii qalbigeennu wax tirayo in gurigeennu iyo maxabadeennu halkaas ay ahaato oysan ahaanin xoolaha aan hayno iyo ilmaha aan hayno iyo ahalka naag jooga هذا أكتهين قفك لغما هلو إيمان كامل انتو كجعل الله النبي عليه الصلاة والسلام أولادي سي أهل كيسي والد كيسي إيا نفتي سينطبا أنك مسؤولود مالك عن وحوال بقى جعلنا هاي أو وحن نوحن باريا إنا نرى احتفال كامبنانا وجعيل أعمالك أقبنو وإنكم معذين إن شاء الله تعالى لما أنتين سأصوى شمرتين نوما موستين نوضو غالتين وحن لنا لا شكر على الواجب وح واجب نوضا إن كنا نوضا معايا العدة لغشة كيرا ياهو أووية أيهيو أما أبكوي عوضا معهن واحد نقول بحرية حفلة عياكو ابن سيدي دبا إن قرآن كلا أغريو ولا أغريو طبعا يشان خدمو أما جامع أول لما يصير سنة كيسير أو ضد بدن أيدي دنايين إنه لما يصيروا سيتم الله أرضا كدن بيصو ماشي لوسور دم ماشي أنا يسهل يطبعا جامع laga sheekeeyo waa laga sheekeeyay ayada waliba la jaanduugay
oon dhammaystirinin. waxaa ku xigtay oo saddexaad ahayd mawciyada baliiqada ahayd oo culummadeen noo soo jeediyeen oo qalbiga aad u dhaqaajisay qof akhrinaya iyo qof dhegaystaba intaba qofkii qalbi culan la yimaaday ayaa noogu xigtay. wixii ku xiga oo afaraad waxay ahaayeen oo barnaamijka noogu jiray tabarukaad oo ah in la afbilowday ifdaar yar la afbilowday ahayd. waxaan ku rajo weynaa saacaddan wixii ka dambeeya in la soo geli doono qaadumayntu ay shaaha noo keeni doonaan barakaysiga asaga ah. intay marka noo diyaarinayaan waxaan rabnaa insha allah qasiido waxaa jirtay oo sheekheena hadda ka hor oo mawlidka bishan ku cabiray taqriiban aan u malaynayo 15 bayd miya in laba kelima laga yiraahdo kabacdina cabdirkii asaga macnada akhriyay ducadii inuu wada qatimo sharaftii aad joogto culmadii aad joogto ayaga iska leh kabacdina waxa weeyaan xafladaas sidaas ayay noogu